aabe uu soo fariistay Allah naxariistay marka wuxuu yiri hadii aan ku dhalay oo wiilkaygii tahay oo duca aad iga rabto waxaad ii keentaa cabitaan furlaata warad ii keen dhakhtarka ay la joogay marka dhakhtarka wuxuu ugu yiri hadii aad u keento oo aabaha aasiisid cabitaankan aabaha adiga ayaa dilay ogow markii lagu yiraahdo aabaha hadaa waxaan siisid uu dhimanayaa asna uu ku yiraahdo duca iga rabto ii keen waa dhacdo maaragtay runtii qofka marka hooyo way dhimatay marka maqlay oo la yaasiimiyay oo la isku leexiyo oo mar loo saaray waa soo cararay kasabuma si wadi kar intaas badan marala markay dhimatay hooyaday waxaan siri dib dambe isku ma arki doontaan dib hab uma siin doontid dib uma salaami doontid dib uma dhunkan doontid dib ulama jiifan doontid dib ulama joogi doontid marka maqrib banaanka iigu dhaco oo gobolka banaanka iigu dhaco maqrib banaanka liigu gaaro telefoonka ugu horeeya ee telefoonkayga soo dhaca wuxuu ahaa nambarka ka imanaya hooyaday laakiin maalinkaas ee hooyaday dhimatay oo aan soo socday kartidaas laga sheekeynayo meel ay ka baxday ma aqaano kartidii iska waaye awood la sheegay iska waaye safarkan iska waaye qadaray ahayd waa ku qancay hooyaday meedkeedan dul tagay oo hooyaan dhowr mar wacay hooyaday ii jawaabi karin dareen la siisan kar mal hooyada oo halkaas jifto oo barti aga tagta jifto oo inta wacdo ku jawaabi karin oo inta hooyo tiraahdo aan hooyo ku leeyahay ama xabsi ku leeyahay dabcan dareen ay leedahay xanuunkeeda laakiin mar umaysan haddana الله سبحانه وتعالى وغفور رحيم وشهيد وقاب إيمان وإجلي إن الجيري ده حق طاي وأنو هو يدي لكن وحيدان حديث هذا قارقود أو هنت بدن أمران sababtoo ah marka meel aad u ciirsatay weysid oo meel aad u dhaqaaqay weysid oo qofku wixii leey weysid oo qofku garab qabtaay weysid gabar yarna aad tahay barnaamijkan aad taagan tahay waa garan kartaa dhibka iyo xanuunka ee leedahay sababtoo ah gabar waa cawro waa geed hilib saaran haddaad banaanka soo baxdo bal garo hooyo cunugeedu ay ka timid yahay 2 bilood caanaha naasaheedu ku jirana ay da'ayaan lala dhaxataa lagu canaananin waay aad waxa soo samaysay aad waxa la sheegay in asoo nool oo hadlaayo dhiigayga ana ugu horeeyay in lagu shubo dhiigayga loo diyaarinayo mid kamid ah takhaatiirta markaas aaba gacanta ku haysa iyo imaado ugu dhacay daqiiqada kadib aabaha uu dhiman doonaa markuu idhahay aabu uu dhiman doonaa laakiin waxaa rabaa in adiga isdiyaarisid oo sida u sabarsiin lahayd waalidkaaga iyo gabdhihii la dhashay iyo hooyo iyo wiilashii ay joogeen wuxuu igu dhahay inaad sabarsiisid waalidkaaga hooyo kale iyo caruurtii kale oo kula dhalatay marka anigu way cuntan weysay waa qaadan waay waxaa xasuustaa xilligaas waxaa ila joogay rag saaxiibadeeda wariyaal ahaa uu ka mid ahaa waxaan iloobin oo xusuus gaar ah jaceylka aabahay oo aniga ii qabay aabo inta isbitaalka loo sii waday aan telefoonka ku celiyay telefoonka markaan ku celiyay hooyo iga qabatay tira aabaha Allah u naxariisto maalintaas ma ahan maalina dareenkayga soo koobi karo lambar 4 isbitaal banaadir oo aabahay ku naf baxay isbitaal balaadir ilaa iyo Viroma sida aan ku imid aniga xataa ilaa hadda ma sheegi karin markii aan xaafadda u wada aabahay wuu hantaraan turooday waa qabtay markaas uu yiri Umar aabahay aadan saaxiibo waan Umar maxaa iga qabanaysaa malag maad iga celin kartaa aabahay toddobaad kadibna waa geeriyooday marka aabe waxa lagu dilay gurigiisa asigoo dhax fadhiyo xilligaas oo xalinayay arin ku saabsaneed gabadhiisa oo aniga labada aad iga weyneed oo markaas xaas ahayd qofku markii aabbu uu ka dhinto wuu noolaan karaa laakiin markii hooyo ay ka dhimato ayuu wuxuu noqdaa baylah ama uu nolosha dhan uu ka dhici karaa waxay lay soo sheegay in maxaan ku dhahaa aabba ay ka saari doonaan oxygenka maadaama oo maxaan ku dhahaa ay dhaheen waxba kama qaban karno oxygenka waa ka saareenaa intaanayt in ka badan lama sii tacaali karno marka oxygenka ay ka saareen aabbo bila oxygen isagoo 3 maalin naftu ku sii jirto waa sababta qofku ilaahay dilaa dhinto
marka ayaga way ka sabreen markay oxygenka ka siibayeen waxay u qabteen muddo saacadooyin ah laakiin 3 maalin kadib you